الرحمن الرحيم ugu horeyn waxaan salaamayaa madaxda xisbiga oo ugu horeeya murashaxa xisbiga Muuse Biixi gudoomiye ku-xigeenka xisbiga iyo xubnaha kale ee hoggaanka xisbiga iyo hoggaanka daladaba waxa kale oo salaamaya marti sharafta haween iyo ragba assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh waxaan hadalka ku raagimay waxaan oranayaa u laba kelmadood oo saameyn u ah dalada horseed oo aanay lahayn baan filayaa dhalinyarada inta badan Soomaaliland joogto inta badan shaashada markaanu daawano kuwa aanay lahayn ayaan labada saameyn waxa weeyaan waxa aanu ka diga riganay horseed dhaqan uma laha halkaas aanu ka diga rogono halkaas aanu u diga rogonay qodobka dhaqan uma laha qodobka labaad ee horseed dhaqanka u lahayn waxa weeye waa dad shaqeeya oo aan adduun iyo halkaas shilin u raaciyo dhadhama aan lahayn weeye labada waa ka seexanaysan horseed ma laha waa dalad gacanta labada gacmoodba wixii ay bixinayso ku siisa cidda martida Muuse Biixi waxaan weydiin doonaa hadii la hayraa maalinta uu kursiga fadhiisto bal Soomaaliland markii aad tartanka gashay imisaad horseed ka soo qaatay horseed codka ay ku keentay iyo Soomaaliland waxaad ka soo heshay ayaan isbarbar dhigi doonaa waxba hadalkan imika halka ku raagi maayo waxaan leeyahay xisbigan kulmiye waxaan uga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee uu noo soo dhaweeyay ee madaxdiisu noogu istaagtay waxaan leeyahay aad baan ugu faraxsanahay annaguna waanu ka jawaabi doonaa maanta maaha maalintii aanu ka jawaabaynay ee maalinta aanu ka jawaabi doonaa waxa weeyaan marka safka la gala ee uu qof waliba warqadiisa ku kaliyeysto maalintaas aanu ka jawaabi doonaa soo dhaweynta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi min shaytaani rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim gudoomiyaha xisbiga kulmiye gudoomiyaha ku-xigeenka koobaad gudoomiyaha ku-xigeenka labaad gudoomiyaha golaha dhexe agaasimayaasha odayaasha dhalinyarada iyo dhammaan martida ka soo qayb gashay xafladan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xilligoo gaaban waqti badan oo inaan haysan darteed hadal badan odhan maayo aniga farxad gaara bay ii tahay xafladda tani waayo fikir in yar ama afraad ama dad aad u yar ay aaminsan yihiin markuu midho dhalo ee uu burqado farxad baad dareemaysaa sida maxamed uu farxadda u dareemayo ee uu keligii xaafadda sometimes uu keligii ahaa maantana uu garab u helay aniga laftaydu garab baan helay oo dalladan bilowgeedii way adkayd inaanu samayno laakiin maanta farxad weyn bay tahay inaan fikradii aan aaminsanaa oo shaqeeyey aan arko aad baan ugu faraxsanahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan intaa raacinaya muuse abtigay erey baan raacinaya aan maalinta horena idhi saci iyo ridii waad haysaa ama way joogaan ee waa geelii weliba waxaan leeyahay maanta geelu geel keliya maaha ee uu koorinaya waa geelii oo koorinaya aad baan ugu faraxsanahay inaanu xisbiga ku soo biirno wax kale umaanaan jeclaan inaanu xisbi xaakimka ku biirno ee keliya waxaa la deeqday laba qodob oo muuse ka dhawaajiyey oo ahaa cadaalad iyo rule of law ama sharciga in la dabaqo oo la waafaqo labadaas shay baanu ku taageernay oo abtinimada ka weyn weliba maadaama waqtigu nagu gaaban yahay hadal badan odhan maayo waxaan ku soo koobaya hadalkayga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وما تنيا يا قاسم السعيد